musharaxa hogaamiye ku-xigeenka hoggaanka sare ee maamulka SSC Khaatumo Dr. Aadan Cabdullaahi Aw Xasan ayaa maanta shaaciyay inuu u taagan yahay qabashada hogaamiye ku-xigeenka SSC Khaatumo. Dr. Aadan waa cilmi baare dhaqaalaha beeraha ku takhasusay waayo aragnimo shaqana u leh in ka badan 30 sano. Dr. Aadan Cabdullaahi Aw Xasan waa xubin ka mid ah golaha sare ee SSC Khaatumo waxa uu ku dhashay buurta Gaalkudhal abaara sanadii 1954 waxa uu dugsiga hoose dhameeyay magaalada Laascaanood 1973 sidoo kale dugsiga sare ee Sheekh Bashiir ayuu dhameeyay 1977 wuxuu shahada digriga ka qaatay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed sanadkii 1982 isagoo bartay agriculture science masterka USA ka qaatay sanadkii 1988 oo ka qaatay agriculture economic wuxuu sanadkii 1992 PhD agriculture economic ka qaatay jaamacadda Oklahoma University USA wuxuu ka soo shaqeeyay fidinta beeraha waqooyi galbeed sanadihii 1982 ilaa 83 waxa uu soo noqday agaasimaha fidinta beeraha gobolka Shabeellaha Hoose 1984 iyo 86 maarayihii tababarada fidinta beeraha Muqdisho ayuu soo noqday 1988 ilaa 89 Dr. Aadan ayaa laga soo bilaabay sanadkii 1993 ilaa 2017 waxa uu ka shaqeynayay hay'ad caalami ah oo saldhigeedu yahay waddanka Syria iyo Jordan una qaabilsan cilmi baarista beeraha dhulka qalalan oo markii uu dambeysay uu ka ahaa hogaamiye inta wixii ka dambeysay hay'ada caalami ah ayuu ka ahaa la taliye xagga dhaqaalaha beeraha waxaana waqtigiisa ku bixiyay inuu aqoontiisa iyo waaranimadiisa uga faa'iideeyo dalkiisa iyo deegaankiisa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. magacayga waxaa la yiraahdaa Aadan Cabdullaahi Aw Xasan waxaan joogaa magaalada Laascaanood waxaan rabaa inaan tacsi ka diro dhammaan dadkii ku waxyeeloobay ku dhintay ku dhaawacmay tacsidaas oo aan u dirayo dhammaan eheladoodii iyo qaraabadoodii iyo saaxiibadoodii iyo dhammaan ummadda SSC Khaatumo ku nool iyo dhammaan guud ahaan ummadda Soomaaliyeed dhibaatadaas oo ay geysteen cadawga naxariislaawaha ah ee madaafiicda ku garaacaya dadka shacabka ah ee birimageyda ah ee dhulkoodii iyo guryahoodii iskaga jira waynu ognahay inay arxanlaawahaasi ciidankiisu ay dileen dad aad u fara badan oo ay barakiciyeen ilaa ay 300,000 oo qoys magaalada Laascaanood laga barakiciyay kuwaasoo hadda ku dhibaataysan deegaanada kale ee dhulka. waxa aan fahansanahay in ujeedada halganka SSC Khaatumo uu yahay laba qodob. qodobka koobaad oo ah in laga xoreeyo dhammaan dhulka SSC Khaatumo cadowgan ku soo duulay ee aan haba yaraatee wax naxariisa wahayn oo ku khasbaya oo wax lala yaabo ku khasbaya inuu xukumo dad xor ah oo aan weligood la xukumin. qodobka labaadna waxa weeyaan SSC Khaatumo dadka deegaankani taariikhiyan waxay u taagnaayeen midnimada ummadda Soomaaliyeed haddana in midnimadii ayadu buddigeen u noqonayaan ayaa meesha ku jirta. marka qodobkaasina waa qodob labaad oo u qalma in loo dagaalamo midnimada ummadda Soomaaliyeed sida lagu raadiyo. anigu waxaan u taaganahay musharax hogaamiye ku-xigeenka maamulka SSC Khaatumo. sabab badan baa jira oo aan isugu taagay positionka tukabada waxa weeyaan ninka hogaanka loo dooran doono inaan la shaqeyn doono si aqli leh oo waxgaradnimo ku jirto aan kuna dhiirigeliyo dhinaca wanaagsan go'aamada fiican in la qaato lana fuliyo. talabaad waxa weeyaan anigu waxbaan ku soo kordhinayaa deegaanka iyo maamulka SSC Khaatumo oo aniga ii gaara kaas oo ah khibrad 30 sano ah oo aan ka shaqeynayay waxa la yiraahdo horumarka dhaqaalaha oo muhiim u ah gaar ahaan wadamada saboolka ah ama wadamada dhulka kulul ee roobkuna ku yar yahay ku nool. khibradaas oo khaas aniga oo aan ku takhasusay xagga waxbarashada kuna shaqeeyay hab caalami ah ayaan ku soo kordhinayaa. waxaan inta ka bacdi codsanaya dhammaan shacabka SSC Khaatumo inay taageeraan si kasta oo ay awoodaan oo ay kari karaan isla markaana xildhibaanada sharafta leh ee doorashada ka qayb qaadanaya inay ii codeeyaan.
laba hadaf ayaa SSC Khaatumo hor yaala mid waxa weeyaan in la xoreeyo deegaanka oo cadawgaas laga xoreeyo oo dadku ay guryahoodii ku soo noqdaan nabad noqdaan shaqaysan karaan danahooda raacan karaan talabaadna waxa weeyaan in la iib geeyo mashruuca SSC Khaatumo iyo maamulka iyo dawlad dhiska hadda aan wadno kaas oo laga iib geenayo ummadda Soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan maamulka dawladda federaalka Soomaaliya kaas oo aan aniga qudhaydu wax ku soo kordhin karo kana qayb qaadan karo xarig kasta oo loo baahan yahay in la xidho loo baahan yahay cid allaale cidii lala kaashan karo in lala kaashtaa loo baahan yahay waana wax lagu guuleysan karo laga marar dhalin karo